habeennimadii xalay waxaa magaalada Garowe ka dhacay kulanka aragti wadaagga ku aadan doorashooyinka qof iyo cod ee Puntland oo ay isugu yimaadeen dhalinyarada ku nool magaalada Garowe iyagoo dhiirigeliyay barnaamijka qof iyo cod ee isdiiwaangelintiisu dhawaan ka bilaaban doonto gobolka Nugaal. Ugu horreyntii waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Nugaal Xasan Cabdirasaaq isagoo ka hadlay muhiimadda ay dhalinyarada u leedahay barnaamijkan isdiiwaangelinta ee qof iyo cod. arinta aan halka isugu nimid oo ah kulanka aragti wadaagga barnaamijkan waxaan rabnaa inuu noqdo barnaamij awoodda bulshada iyo shacabka ama tilaysaan aqoonyahanka u tihiin dhalinyarada u tihiin inuu wax ka bedelo. waxa laga yaabaa haddii fariimo kale oo doorashadiid ah oo dimuqraadiyadeed ah oo isdiiwaangelintiida inay ka xoog bataan aqoonta inuu xambaarsaneen oo ku huwanayn dhalinyaronnimadii iyo firfircoonimadii ay sheeganaynay waxay noqonaysaa wax been ay noqonaysaa. waxaan ka bilaabaynaa marka Puntland markii laga yimaado inagu waxaan mas'uuliyadna ka saaran tahay waa Nugaal Garowe aynu joogno oo caasimadii iyo indhihii gobolada kala haddii marka intaasoo aqoon-yahan oo jaamiciyiina intaasoo dhalinyaraha fadhido tiim ama koox laga yaabo inay fahamka qaarkood waxa laga dana siyaasadeed leeyihiin qaarkood laga yaabo inay aragtiyo kale iyo faham khaldan ay ka aaminsan yihiin haddii ay ka xoog badnaato waxa aan baranay iyo waxa aynu ku tiirsanahay iyo waxa aynu ku tabcayno macnaheedu waxa weeye inay dib isugu noqono. waa inaan aragtida bulshada wax ka bedeli karnaa, waa inaan aragtida dadweynaha aynu caawa matalayno aynu wax ku dari karnaa. barnaamijka doorashada muhiimadiisa iyo ujeedkiisa iyo kulli marba inaan ka hadlo waxa taqaaniin waa waxa aan leenahay waa inaan idinku safiir noqotaan oo aad gadaan. laakiin fariinta ugu weyn caawa idinka idin dhiibayo walaalayaalow 7 bisha Nugaal ka bilaabanaysaa iyaynaan dhagahayno maqlin nidaamkii waa la istaajiyay oo wuxuu u istaagay nabadoonaa warqad saxiixay. dhankooda waxaa munaasabada ka hadlay dhalinyarada iyo aqoon-yahankii ka soo qayb galay kulankan lagu dhiirigelinayay nidaamka doorashooyinka ee ka hana qaaday deegaanada Puntland. shaqadiini gadaal ugu noqda ahayd xalinta khilaafaadka magaha iyo wixii la midka ah iyo inaad qabaa'ilada ma aragtaa markaas wixii culaysyo oo yimaado aad sulux ugu qaybsaan. arrintan siyaasaddu way idinka baaxad weyn tahay, way idinka culus tahay, idinkana eed iyo culays idinku filan. annagana in aad fogeysaan dadkii matali lahaa dadka waxna u qaban lahaa nidaam dawladeed oo dhammaystiran oo macno leh keeni lahaana bannaanka ka dhigtaan noogu filan. haddaba waa idinkaga mahad celinaynaa, abaal baa idinkaga haynaa waqtiga dheer shaqada aad soo hayseen. laakiin hadda xilligan la joogo waxaan u baahannahay dalku sida uu yahay inuu iska bedelo. odayaasha siyaasiyiinta ah ee maanta iyo maalintii Puntland la asaasay iyagu ku soo bariisaynayay oo ku soo caruura korsaday oo guryaha waaweyn ku dhistay oo hantida badan ku helay oo nidaam dawlad ay reer Puntland dhisteen oo dhiig u daatay oo aan ogahay in hooyaday iyo aabahay ay xataa qayb ka mid ah alaabtooda u gadeen 54 markii dawladda Puntland lagu dhisay. in aad maanta idinkoo faa'iidadii dalkani lahaa intii ugu badneed cunay oo qaatay oo guryihiina geystay oo mashaariicdii dalku lahaa caruurihiina siistay inaa haddana maanta intaad duleedka istaagtaan tiraahdaan xabad baan la soo dhacaynaa shalana idinku aad naga dhaadhicinayseen oo nagu qasbayseen in aad dhahdaan doorasho qof iyo cod la aadaya. hadda maalintii adigu aad rootiga maraqa kula jirtana haddaa gaardinaysid maalintaa bannaanka ka tagtidna aad rabtid inaa aniga iga dhaadhicisid xaq ma ahana xaaraan weeye. hadda anigu kaa yeeli maayo waxbaan akhris in badan oo aniga ila mid ah baana jirta weeye in barnaamijkan uu hirgalo. barnaamij shakhsi wato maaha, waa barnaamij 2 iyo 3 wataan maaha, waa barnaamij shacabku runtii ay leeyihiin. ciidii marka ka soo horjeeda waa ciid ka soo horjeeda danta shacabka. inta runtii inaan dareensanaano maskaxda ku hayno aaminsanaano runtii ciidii marka liddi ku ah qodobkaas waa ciid liddi ku ah dawladnimadeena, waa ciid liddi ku ah jiritaankeenna, waa ciid runtii dana gaar ah. aan isugu nimaano oo aan ku wada wadaagno talaahaan sidii aan bulshadeena ugu wargelin lahayn arrimaha ku soo cusboonaaday
deegaanadeenna oo ah arrimaha doorashooyinka qof iyo cod ee golaha deegaanka. waxaa muhiima dadka wax la fahansiinaya annaga ma aha, annagu waxaanu nahay bulshadii hormuudkoodii, aqoon-yahankoodii, ganacsatadoodii baynu nahay, laakiin waxaanu rabnaa in aanu fahansiino guryihii aan ka nimid, hooyooyinkeen, walaalahayn, ummadda inteeda badan oo aan arrimahan u dhuundaloolin baan waxaa muhiima inaanu codkeenna gaarsiino oo aanu fahansiino waxa hadda socdaa waxa ay yihiin. waa maxay doorashadu? doorashadu waxa weeye qof kasta oo muwaadin ah oo u dhashay Puntland wuxuu xaq u leeyahay hadduu qaangaaro inuu wax doorto lana doorto. waa inaan taa calaamadeynaa oo aan dadka saa u fahansiinaa waadaxa. yaa ka faa'iidaya doorashada? doorashada ka faa'iidi maayo siyaasi danleeya oo wax gaara u ordaya saacadda taagan, ee waxaa ka faa'iidaya bulshadeenna inta badan oo u baahan biyihii, caafimaadkii, kaabayaasha dhaqaalaha, maamul toosan iyo dad ay la xisaabtamaan. haddii qofkan uu ku yimaado codkaaga adiga aad la baxday, waxaad awood u leedahay berri inaad ka wareejisid. laakiin qof uu oday kuu keenay ama qoys lagugu keenay, waxaad ku qasban tahay inaadan waxna ku dari karin waxna ka dhimi karin. waxaa laga yaabaa dadka qaybtood howlahan markay ka shaqaynayaan ama ka soo horjeesanayaan ama taageerayaan inay leeyihiin ulterior motive waxa la dhaho ama dana kale u qarsoon. laakiin qofka shacabka oo dhalinyarada ama aqoon-yahanka oo isagu u taageersan hawshan interestiga guud oo shacabka iyo muwaadinimadiisa waxaa laga rabaa processka nina inuusan ku raaligelin, nina inuusan ugu darnaan soo ceshadiisa oo qofka danaysanaya isagu uu noqdo. taasna taasaan ka xoojinaya. qodobka saddexaad ee runtii inaan isaga soo koobo waxaa weeye wax badan baa la tabayay Puntland intay dhisnayd. qofna dhihi maayo hadda meesha joogto waa perfect. qofkii hadda yidhaahda processkan socda hadduu inoo dhammaystirmo oo golayaashan deegaanka aan dooranno oo baarlamaanka aan dooranno oo madaxweynaha xitaa lagu soo doorto, wax kasta perfect bay noqonaysaa. qofkaana dadka been buu u sheegay. waxaan waa process, laakiin wuxuu xaqiijinayaa processkan 100% sidii hore si ka fiican aan la xisaabtano qofkaan dooranno, aan cod yeelano, qofkii mar intaan dooranno shaqayn waay meesha aan ka tuurno, kharashka dadka laga ururiyo canshuurta meeshaan lagu rangarayo dollar kasta meesha ku baxayaan ogaano. macnaha wuxuu inoo saxayaa dowladnimada nidaamkeedu inoo saxayaa. waxaa laga hadlaa waxyaabaha maaragtay hadda waddanka ka socda, kuwo ogol iyo kuwo diidanba. laakiin annagu waxaan rabnaa inaanu ka hadalno sababta aan u rabno maxaa u rabnaa nidaamka xisbiyada waddankaani inuu u wareego. waxaan u aragnaa nidaamkan sidiisa horta inuu yahay qodobka koowaad, inuu yahay nidaamka xisbiyada badan inuu yahay dastuuri, inuu yahay arrin reer Puntland ay ku ballameen oo markii Puntland la aasaasay dadku ay ku ballameen oo ku dastuurkeena lagu qoray 3 sano ka bacdi inaanu u wareegno barnaamijkan qof iyo cod oo nidaamka xisbiyada badan. marka waxaan leeyahay gabdhaha gobolka Nugaal aan garanay ifraax oo kala hadeer maanta xilmi heli karto wax kasto dhaca ma ku fikri karto xitaa hadii ku fikirto heli mayso because gobolkaasi ka soo jeeda runta isu sheegay. laakiin hadii qof iyo cod la taageero oo socdo oo nidaamkan hirgalo, waxa probability more than 50% in ifraax ama gabdhaha la midka gobolka u dhashay ay ka soo bixi karaan. hafarintaas gabdhahan siinaya ama u soo jeedinaya guud ahaan. marka waxaan jeclahay maxamedna waa soo socdaay, waxaan jeclahay qof walba anoon cidna dhaliilayn oon cidna wax ka sheegin oo qof hebel baasaan yiri aan oranayn, qof walba oo wax isku haya barxadda ay yimaado. Idris Maxamuud Sheekh Xamed ayaa ugu dambeyntii waxa munaasabada ka akhriyay warmurtiyeedka ku aadan kulankan ay yeesheen dhalinyarada gobolka Nugaal ee ku aadan aragti wadaagga doorashooyinka qof iyo cod ee qorsheysan. hordhac kulanka aragti wadaagga ah oo ka qabsoomay hoteelka Martisoor taariikhdu markay ahayd 30kii bishii koowaad 2023 waxaa ka soo qayb galay waxgarad dhalinyaro iyo aqoon-yahanka ku nool gobolka Nugaal. qodobka koowaad ee kulanku isku raacay wuxuu noqday kulanku wuxuu taageeray shirka masiiriga ah ee bulshada gobolada SSC uga furmay magaalada Laascaano ay hormuudka ka yihiin garaadada iyo cuqaasha gobolada SSC. kulanku wuxuu dhiirigelinayaa garaadada iyo bulshada gobolada SSC
in maanta fursad weyn ay gacantooda ku jirto isla markaasna laga filayo inay soo saaraan talo aad loo ruugay oo goboladaasi ka saarta dhibaatadii ay muddada dheer ku jireen. kulanku wuxuu cadeynayaa in bulshada gobolka Nugaal iyo guud ahaan Puntland ay 100% taageersan yihiin bulshada ku nool gobolada SSC isla markaasna ay garab siin doonaan wixii go'aan ah oo ka soo baxa shirka ay garaadadu iyo isimada iyo cuqaasha kale ay hormuudka ka yihiin. kulanku wuxuu xusuusinayaa maamulka madaxweyne Muuse Biixi ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya ka dhisan inaysan isku dayin inay carqaladeeyaan go'aamada shirkaas ka soo baxa isla markaasna wuxuu kulanku xusuusinayaa maamulkaasi in bulshada SSC aysan ahayn madigooni taagan ee ay leeyihiin garab iyo ehel walaal u ah oo diyaar u ah inay garabkooda soo istaagaan markasta. qodobka labaad ee kulanka ka soo baxay waa mowqifka kulanku dood wadaag iyo falanqeyn dheer kadib wuxuu si buuxda isula qaatay in la ayido geediga nidaamka asxaabta badan loogu guurayo. waxaana kulanku uu cadeynayaa in bulshada gobolka Nugaal ay diyaar u yihiin hirgelinta barnaamijka dimuqraadiyiinta ee Puntland ka socda. kulanku wuxuu si dhameystiran isugu raacay in laga qayb galo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee taasoo dhawaan laga qorsheynayo inay ka hirgasho gobolka Nugaal. Cabdiraxmaan Xayir, wararka telefishinka Sahal Cable, Garowe. Ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin Akoon oo kamid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. Sayfin Akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya. ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam.